waxaan xasuustaa wax duubina ku yidhi nin dhallinyara baa intuu kamarad iska soo qaatay buu wuxuu yidhi sheekha ma fadhiyo wax akhriya ma iska timi xagga dambe la fadhiista markaa waxaa kala doortay inaan wax akhriyo iyo inaan iska tago markaasaan iska akhriyey habeenba labada xaashiyood aad dhigaysaad kala baxaysaa ila wuu furfuran yahay labadii baan la soo baxay habeenkii anigoo meel la sii dhukusaya ayaa dabayliyey timo labadiina dabayshii baa qaadatay takhasuskaygu tumaalnimada laydku ahaa jaamacaddii soomaaliyeed baan ka baxay 1980kii iyadana takhasuskaygu tumaal laydha baan kaga baxay station police waa laygu xidhay NSS waa laygu xidhay xero gulwado waa laygu xidhay xero military waa laygu xidhay dhabarjabin waa laygu xidhay jeel waa laygu xidhay weligeyna maxkamad layma tagin bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah mala waa laga fiican yahay qof bini aadam inuu isagu iska warramo weligay iskama warramin intaan noolaa nin badan baa ama TV ama qolo jaraa'ida ama qolo raadiyo waa ii yimaadeen waa ku waraysanayna weligeyna war ma bixin weligeyna TV ma tegin waxaa dadku daawadaan masaajidda un bay ka qaateen cajaladaha yaalla dee waxaan islahaa cali markuu iska warramo aad ka dambaysid calina diid inuu warramo marka wax badan oo idin sheego runtii ay idinku kordhinaysaana ma jiro waqtigiina la lumiyo maaha anuu ragga halkan fadhiya waa ka wada da'weynaan u malaynayaa sheekh maxamed umar mala isku dhadhownahay mustafa xaj ismaaciil haaruun baa la yidhaahdaa reer wadaadaa baan ka dhashay aabbahay xaaji baa uu ku magac dheeraa nin sheekh uu ahaa awogay aw haaruun baa la odhan jiray awogay ka dambeeya aw yuusuf baa la odhan jiray reer culummo oo diin ku taxan ayaan ka dhashay reer ahaan gobolka burcaan ku dhashay waqtigii isticmaarkaanan dhashay intii aan dowladda soomaaliya dalanin dadka geedka hoostiisa ku dhashayna waa ka mid ahay inkastoo aabbahay allah u naxariisto 45 sannadood buu cadan deganaa 1963 buu ka soo noqday laakiin dhaqanku wuxuu ahaa in islaamaha loo diro baadiyo ay baadiyo ku dhashaan iyadoo la diidan yahay dhakhtarka iyo raggaa joogiya waxaasi aanay islaamuhu rabin ee loo diro hooyadeedoo baadiyo joogta inay baadiyo lagu soo umuro intaanu walaalaanay nin qura nagaga dhashay cadan intayadii kaleba baadiyaana loo diray baadiyaanu ku soo dhalannay baadiyaha gobolka togdheer ee burco ayaan ku dhashay isagaan wax ku bartay malcaamad dugsi hoose dugsi dhexe institutekii jarmalka ee burco ku yaalay intaasaan ka baxay takhasuskaygu tumaalnimada laydku ahaa jaamacaddii soomaaliyeed baan ka baxay 1980kii iyadana takhasuskaygu tumaal laydha baan kaga baxay korontada tumaalku waa farsamo yaqaan laydh baan kaga baxay jaamacadda kadibna waxaan noqday macallin dugsiga farsamada gacanta ee jarmalku dhisay ku yaalla magaalada burcaan macallin ka noqday markaan muddo sanad iyo meelaha joogay dowladdii soomaaliyeed baa ay xidhay dowladdaas soomaaliyeed ma rabo wax badan inaan ka sheego laakiin intay meelooda wax ku xidhi jirtayba waan soo maray station police waa laygu xidhay NSS waa laygu xidhay xero gulwado waa laygu xidhay xero military waa laygu xidhay dhabarjabin waa laygu xidhay jeel waa laygu xidhay weligeyna maxkamad layma tagin mararka qaarkoodna sanadaan ku jiray mararka qaarkood baan 30 bilood ku jiray calaa kulli xaal waxbarashada diineedna waxun bay ahayd un culamada Soomaaliyeed ee waddanka degan wixii aanu ka bowsanay ma jirin waddan dabadeed aanu baxay intii dambana saanu joogo un waddanka Soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada burcaan joogay markii 1988 jabhadu soo gashay waqtigaas baan waddanka ka baxay
yurub iyo meelahaasaa niman xanuunsanayo aan walaalana geeyey anigoo yurub joogaa dowladdii soomaaliyeedna dhacday ilaa 99 baan deganaa yurub march 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada hargeysa ilaa haddana hargeysaan deganay laakiin socodkayga yurub waa tiro badan yihi 12 sannadood dambe burciya hargeysa un baan ka dhexeeya laakiin waa badan yahay socodkayga aan ku noqnoqdo yurub iyo meelahaan ku noqdo qaab nololeedkii soomaaliya waagii horena ee lixdanaadkiina dimuqrasi bay ahayd dimuqrasi qabiilkan uun ku salaysan haddaba aragtaan waxaan xasuustaa iyadoo 1969 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen dadku intay wadada maraan baa waxaa la odhan jiray dhulka yaale ilaahay baa leh ka sokowna reer hebel baa leh saas cirka yaale cirkiiyo dhulka la sheegan jiray hebelada jiray dowladdii kacaanka ee soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay scientific socialismkuna wuxuu noqday diin la dirir annaguna dhallinyaro uun markaa waxoogaa diinta ka garatay oo aan sistamkaa ku qanacsanayne hortaagan baanu ahayn ma jirin cilmigu sidanuu hadda u faafsan yahay oo dowladdii soomaaliyeed waxay lahayd censorship aan ogolayn kitaab aan dowladdu ogolaanin waddanka ma soo geli jirin waddankuna sidan uu iminka isaga furaya isagama furayn diyaaradaha dabadda ka yimaada only xamar oo ka soo degi jirtay lama ogolayn waddanka inta kale diyaarad dabadeed inay ka soo degto isaa daraaddeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship faafreeb wax la yidhahdo soo mari jiray marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd haddaan qiso idiin sheego dhowr iyo 70kii anigoo dumar tafsiir u dhigaya habeenkii baan dhigi jirnay guri madow habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tegaysaa dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumaroo la soo ururiyey tafsiir ugu akhriyaysa tafsiirkan haystee markaa waxaa kitaabkan jalaaleynka la yidhaahdo jalaaleynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn waxay ahaan jireen dhowr xaashiyood oo isku jiri jireen dabeetana gal sare buu leeyahay ku daboolan habeenba labada xaashiyood aad dhigaysaad kala baxaysaa ila wuu furfuran yahay labadii baan la soo baxay habeenkii anigoo meel la sii dhukusaya ayaa dabayliyey timo labadiina dabayshii baa qaadatay yacni kutub ma taalo badani aad bay cidhiidhi u ahayd culimo waddanka waa deganayd laakiin lama ogolayn inay wax dhigaan ama wax akhriyaan bale waxaa laga yaabaa haddaad nin dhallinyaro ah tahay inuu kaa boqo waayo dowladda ku xidhaysa inuu kaa fogaado inuu tafsiir caama ama akhriyi jiray weliba soomaaliya waagaasi tafsiirka bisha ramadaan unbaa inta badan la akhriyi jiray waqtiyada kale kutubta fiqiga ama naxwa ama waxaasaa la akhriyi jiray على كل حال waxaan uga daleeyay aan arrintan u tilmaamayo waxa weeyaan jaaniska ay idinku haysataan ma oolin waaga jaaniskana ay kutubtu baaqiyada jeeb ku sidataan ku jirto meel kasta lagu iibinayo ay kitaab aad u baahataan helayso electronically aad shaamilo soo download gareynayso oo dhowr iyo 10,000 oo mujallad ay ku jiraan yani jaaniska sida tan ee qofku research samayn kara wax baxthi kara wax baari kara waaga ma oolin laakiin waxa yaalay dad committed oo dadaalaya mala daacadnimana ku jirto oo in ilaahay waxa ugu dhawaadaan ay ku jirto marka anigu qadiyada aan jecel inaan ku celiyo waxa weeyaan war nicmada haysataan ku saabsiisan diintu sida ay maanta u fududahay inuu qofku barto may jirin may oolin waxay ahayd wax aad u cidhiidhiya sidaad u xasilisaana ay inta badan ku xidhnaanayso sidaad wax u akhrido xataa iyadoo wax akhriskaagu fiican yahayna aanad helaynin wixii aad akhriyi lahayd uu cidhiidhi kugu gelayo intan dambe na dee meelaha un soomaalidu joogto baan wax ka sheegi jirnay anigu macallin baan ahaan jiray saa daraaddeed sheekh maan noqonin weli bana gaadhin macallinkuna daris loo diro buu soo diyaariyaa oo
daadiga waana laga yaabaa waqti aanay culamada Soomaaliyeed haysanin qalabka technology-ga inaanu Yurub ka hortagayo waxa akhriyo dad wuxuu akhriyay aan xasuustaa ajaladahan ugu badan hore ee 90-yadii dadku dhageysan jireen maqaaxaan ku akhriyi jiray waa Soomaaliyeed oo Norway maqaaxid Somali Welfare Leader Somali Welfare Organization ayaan ku war labadii toddobaad maalin wax maydeen akhriyay oo ka saydaadeen ha niman carabaha ka tagay oo aan diinta isku fiicnayn baa ku badnaa markaasaan bilaabay inaan muxaadaraad xawla aliimaan arkaan aliimaan iyo xawla alxadaara alislaamiya inaan ka warramo nin dhallinyaraa baan hadal badan 2 saac iyo dheeraad baan maalin ileen 14 cashaan mar helaya markaa waxay noqotay markaa inaan 2 saac iyo dheeraad hadlo dadka markaa cajaladahaas ma soo gaadho markaas la siiyay malaa ninkan sheekh weyn waa sheekh weyn marna ma noqonin laakiin uun fursad aanay jirin anigu wax la duubo ma rabin waxaan xasuustaa waxba duubinaan ku yidhi nin dhallinyaraa baa intuu kamarad iska soo qaatay buu wuxuu yidhi sheekh ama fadhiyo wax akhriya ama iska tag hagga dambe la fadhiista markaa waxaan kala doortay inaan wax akhriyo iyo inaan iska tago markaasaan iska akhriyey dariskii dambaan imi maalintii dambe cajaladu sidaan iminka ay u badayn uma badnayn VHS bay ahaan jireen VHS-kana warshad baa badin jirtay keliya intay cajaladii qaadeen bay warshad geeyeen dabeetana dhowr boqol cajaladood bay ka dhigeen iyagoo meesha ku iibinayaan ugu imin nin Cabdillaahi Xuseen Kahya la yidhaahdo iyo inaan Looran la yidhaahdo Axmed Baaruud iyagoo iibinayaan war waa sidee dee waxaana iibinaysaa waxaan sheekh masaajidkaan kirada kaga bixinayna markaasaan iska aamusoo sirida masaajidkaan kirada alagaga bixiyo marka waxaan dadku duubayna anigu kuma talagelinay inaan duubo TV-na weli ma tegin raadiyona weli ma tegin wadaadku su'aalaha badan oo dadka weydiinayana malaa inuu soo ka jawaabo bay ku fiican tahay anigu intaasaan ku gabagabaynayaa wassalaamu calaykum macadka al-sunna oo qaab online wax looga barto adigoo dalka ama dibadda jooga waxyaalaha aad ka baran doonto waxaa ka mid ah barashada hikaada barashada quraanka barashada axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam barashada ducooyinka iyo guud ahaan waxyaalaha ku tacalluqa shariicada islaamka al-sunna institute wax ka baro adigoo jooga dalka ama dibadda kuna baro adigoo jooga gurigaaga wixii faahfaahintaas dheeri kala xiriir lambarada iyo gmailada shashada ku qoran